xalay saqdi dhexe wuxuu dab xoogan ka kacay suuqa Sokomjinga ee gudaha magaalada Wajeer qaybtiisa dambe ee xafiiska gudoomiye xaafadeedka Township oo ay qasaare xoogan kuwaas oo dhammaan ay gubteen meheradii uu dabkaasi qabsaday walow aan la shaacin tirada malahaneed uu galaabsaday dabkaas saacada kadib waxaa goobtaasi soo gaaray saraakiisha dabdamiska ee waaxda munisibiyada ee gudaha magaalada Wajeer kuwaas oo ugu dambeyn ku guuleystay inay baqtiyaan dabkaas milkiilayaasha meheradaasi gubtay warbaahinta Bayaan TV la hadlay ayaa ka waramay qasaaraha lixaad kale ee soo gaaray saahidan oo qasaarneen xabada shaygoon kamaan bixin 6 saac markaan imaaday ana waxaan imaaday asagoo dabka dhan isku dameen alaabtan shayba kamaan bixin saahad dhaq baa daaqada way bangeysin miska marka la waxay uu imaaday wana nagu dhawaay umaleen dabdabiska meel uu joogo marka la waxay waa imaaday laakiin hortiisa bal qasaaro waxa uu imaaday waxa baatiyaash isbal qabsadeen way wala gubteen la ilaahay qasaaro badan iga soo gaartay la maskax galayna baa iga gubatay dukaanka inta la arkaysa cirku joogu buuxa maalin dhawaa ma soo adeega 1 milyan wax way dhant 1 milyan wax way dhant wallahi xalay waxaan la saxaway waa kitaabaha iyo mari aan daraad keena jawaan weynaada lug oo awis ragad kali oo hataa shaatiyaal ku jirna Nairobi ka keena 300 iyo xogaha kun waxaan dhahay cid maxas kaga qaadan ways meesha markaa soo istaag alla mariha meesha maxas kaga dhigta alla shada kitaab meesha uga baxsan ways alal dad talib badana haddana waxaan dhahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay gashay ku siimaanto ma ku joogo halkaas aan gabar iska dhigtay maxaa ka qaban kartaa waxba halka iska fiirsan saaqada ilaaha bixiya salay xoogaygan ku keenay riyaan shah ka gaday baan ku gaday lacagtan iiga imaad 20 riya cadan ka bilaabay maanta maxaa maleen deen waxa liigu leeyahay maleen 7 kun hata ma dhanno liigu leeyahay alxamdulillah magacayga maxaa la dhahaa Saafi Cali Saalax la dhahaa meeshan gubataan ani iska leeyahay ma aragtay meesha hanti badan ay igu gubatay qariib 4 milyan ay igu gubatay ani lacag yeeshin way igu jirtay maqlaysa 4 milyan ay igu gubatay wax guban waa la garan waay meesha xawala xalaal kitaabahay kulli meesha ku gubteen maqlaysa marka waxaan rabnaa dawladda inay waxna qabato iyo ma aragtay wixii culimo awdiin ah in la saacideeyaan rabnaa meeshan ku hanti been anaga meeshan ani waxaan degnaa 18 sano yaan degnaa inta xoogayga dhan meesha ku doodamaa maqlaysa wax gubana meesha nal ma qabin anaga hadii la dhilaa nal baa gubay wax bay ahaan leed waqti nal lama gubin wax kale u rijeedal haan gubay anaga dadka maxaa soo malaysa ana 8 saac li soo maama Saafi ana Saalax dukaanka aad ugu gubtay war ma haysid miya oo dukaankay ma gubin nal ma qabin dukaanka aad damba soo noqdaa liiday sidee xal ma saxan anaga hada inta imaana meesha damba saan imaan waka eeday wax gubana ma sheegi karna ilaahay oo wixii gubay Allah soo qabtay wixii gubay markii eeday saasa jirta dhibkaas anaas meel wax u doono ma garanayna ana tay Saafi cunugii shaqayn la beero iga dhintay maqlaysa dhibkaas jira dabkana xalayna galay ma aragtaayo 8 saac markay ahayd baa meesha way guban haysan la dhahay markaan imaanayn anaga meesha dhan iyadoo isku mashtaa imaanay martaa wax dabka nagu gubina ma sheegi karna wax ma aragtaa nooga badbaaday oo nooga bixina ma laha magacaydu waa Maxamed Sheekh Cabdullaahi waa alxamdulillah waa masiibir oo ilaahay uu soo edmeeyana gaartay marka meesha xaaladeeda markaan ka waramo meel oo bacaadliyaal iyo maktab ay ahayd meel oo sitiima uu ku jiray oo koronto ay ku jirtay malaha kuma jirin makhaayad oo dab oo lagu shidaayna kuma jirin marka sidaas darteeda hada masiib ilaahay uu soo edmeeyay taasana gaartay xalay dabka naga gubtay marka aan ahaantayda maktabaan ku lahay meesha maktabka oo kitaabana lagu sameeyay kitaabana lagu gaday marka dhowr aday 300 dhowr kitaab oo cilmi quraan isku dhex jiro oo kuwa cilmiga hadma ay qiyaasna hal xabo oo waxa ku jirayba oo kaligiis aan ku soo gaday 10 kun oo hal kitaab ah marka kitaab fara badan oo meesha uu jiray qiyaas aan 300 wax uu la jiray marka meesha ma kitaabana waa lagu sameeyay marka alxamdulillah arintaas dhacday markaan meeshan restaurant kule alaab fara badan ay gubtay oo macna alaab oo raashin oo digir basta macaroni wala raashin dad cuna oo fara badan ay gubtay waxay heer male markaan alxamdulillah ilaahay wax kala meel kala khayr ay keenay waxa baad ma gacanta ma qoay markaas asaga walaalay macna ay saacideyn karaan ay soo saacidayaan markaas asaga jirta wax kala ma jiraan rahmatullahi wa barakatuh meeshan maartay waxaan xalay meesha wax ka dhacay maartay dab aad u weyn ka dhacay wuxuuna ku yaalaa meeshii maartay Sokomjinga gaarkeeda xafiiska chiefka ayuu ku yaalaa
xalay aad maarta adiga dabku wuxuu bilowday 7 saac habeenimo si la sheegay anaga marka waa isku urdeynay subaxan baan maqlay subaxa meesha hadaan soo boqono waxaan aragnay maartay ugu yaraan 6 dukaan inay meesha ku qasaareen ay qasaaradan maartay ugu weyneed ay tahay markii lacagaha la isku xisaabo waadi ugu yaraan 6,000 oo shilin maartay 6 milyan oo shilin ka xisaab marka qasaarada soo gaartay aan marka waxaan meeshan u joogaa agaasimaha Kenya National Chamber of Commerce aan u yahay maartay representative marka maanta waa soo booqanay chairman keedina waa maqan yahay chairman insha Allah maanta soo bixi doonaa insha Allah wixii kale oo talo iyo tusaale waa isku imaan doonaa waxa ka dhacday meeshan masiibo qaran baa ka dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim baloogan dukaamadan kaatimadan wadan wuxuu ahaa daris jiiraanka aan ahayn hadda aan u arkay xalib gubtaan la igu yiri dandamise dawladda u soo ma aha markii ugu horeysay uu dab noocani ka dhasha Sokomjinga waxaana ku horeeyay sanadan soo dhaafnay dab noocani oo galabtay meherad badan oo halkaasi ku yeelay Maxamed Kulmiye warbaahinta Biyan TV gudaha magaalada Tanwajeer.